وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. waxaan joognaa saakaysa socda kadib xaafadda Aba Naasir Maxamed Rashid kugiisaan joognaa ناصر محمد مرشد ما شاء الله عفوا قولي إنسان جوجنا الحمد لله صعدال يركض وانا إلهي سبحانه وتعالى وانا وكاني وحنا قبل سنوات أنا صوب وأنا أبا ناصر محمد مرشد هوريسان أسوق بني أما إذا كل شيء أبا ناصر قولي صوت حالة ترى أكيسيم ويا وكسو جاي هذا في إندونيسيا عاصمة جاكرتا داران حافظ يسوع على هذا فنون إندا يا هذا فلله الحمد والشكر وحرمنا بناصر إلى مكبرة ويدينه يالكن حنونكم سيد حالكم يسيركم بالأول. والله مكبرة وحي كبرى ولا إكسو ذبا ويكون شيء. ثاني كل شيء. سيد كل شيء. الحمد لله وعن اسبتال ضربة بين سدح اسبتال أفر اسبتال بين. ودن كان يدرج. يمن يتنجو. أنت ما يمن. عرفت أنا بيمن أفضل. ما شاء الله. marka waa dikaatiradu waxay leeyihiin maskaxda ku socota jirinoodi daawo oo yacni mataqaana oo loogu talagalay oo jirtana ma laha daawadooda waxa weeyaan jirada maskaxda ka socota waxay u baahan yihiin tamaariin riyaada in lagu suubiyo mar walba exercise exercise daa'iman waan u suubi jirnay waan geen jirnay markas weyn ku yaal sanca waan geenayni ilaa ay haddana waxaan ka fahanay dareenna ma laha ما عياله ما أنت حنوصل. أنت حنوصل واسدح. كان أول ما تجي. الله وجبر يوهل. وده أمريكا ضف حنوصل يكون جستة. ها. ما قصنا جستة ولا. وتضرب جروين. كان أول ما قصنا جستة. أول. مثلا هيك. أول واتها. سلو. تدوين واتنا. تدوين تونتري. طبعا تدوسني. مقعد ورانيا رانيا مين كان مجيء محمد جودي كان ما شاء الله ولا ليال سأركيسين وحنوصل يا أبا ناصر محمد مرشد حنوصل سدح عيال سدح العيال وقبل وين يا محمد إيلاف سدرت مركان أبا ناصر سؤاله هو أن ويدين وحنوش يجي إن سدحنا العيال آن النولان كرين أون لهين كرين إلا إن الله شدوا السيجا أما شيء واحد قوجيه بريو كجرا شيء واحد قوجيه وحبها هي كرنت بدأ إن الله شو أبا ناصر حالتي إلهي سبحانه وتعالى أي سيدنا أقول لجي وحنا مركز تأجري وإماذو أنا أركان إنه أكتب فرح سيهاي حكمك إلهي يقدر كان لكن عدوى البو إسلام أو ضمير كقدم بي مركز جورجان صوغشو waxay dareemaysaa xaalad aad u adag oo u dhib badan bay markaa dareemaysaa insha Allah tabaaraka wa taala Aba Naasir sidoo kale wuxuu leeyahay laba ciyaal oo caafimaad qaba iyo saddex xanuunsan oo shan isbuucii hore maraan soo booqday wuxuu ii sheegay xanuunkan ciyaalkan inay ku dhasheen sida hadda idinkan oo idin sheegay horaan saddexdan ciyaal indhaha waxaa looga sameeyay camaliya ama qaliin baa lagu sameeyay laakiin kadib baa lagu arkay xanuunkan lugaha saddexdoodu ma soconayaan waxay isticmaalaan saddexdooda soo hor iigu sheegay waxyaabaha nijaasada lagu celiyo ama xafaayadaha loo yaqaano waxaa gudaha ku jirto hooyo Nafiso oo dhashay shanta caruur oo Aba Naasir oo aabaha u yahay sidaa darteed wuxuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu sheegay kitaabkii munazzalka rasuulkeena noo tilmaamay sallallahu alayhi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa xadiiska rasuulku ah dhulku markii la isaga naxariisto ayaa samada rabbi subxaanahu jalla wa ala dadka uga naxariisanaya Aba Naasir wuxuu ku sugan yahay Indonesia Jakarta ma ahan aabahool taga uu shaqeysta ma ahan leena meesha wuxuu ku yahay qaxoonti systemka am barnaamijka qaxoontiyada wadankan u yaalana ma ahan mid laga shaqeysan karo ama la shaqeysan karo cid walba qaxoontiga marka waxa loogu talagalay inay guriga fadhido waxa marka dareemaysaa xaqiiqdii marka saddex cunug oo xafaayad loo xiro
isiga 24 saac haddii laga damiyo wax yar kaamirada saa hore ugu aragteen markaan soo galnay oohin baan la soo galnay waana dhibaatada guriga kan ka jirta ayay markaasi ka mid tahay insha allah walaalaha muxsiniinta waxaan sheegaynaa cid walbo kaamiradan daawata inay aabba naasir oo ilaahay subxaana wa tacaala xukunkii halkan la fadhiya in wax allaala wixii markaasi qof walba muxsina oo awooddiisu ay tahay inuu soo gaarsiyo waxaana doonayaa haddeertaan inaan guddoonsiiyo lacag $150 ah oo ay ii soo dhiibeen walaalo muxsiniin ah waxay ii soo dhiibeen lacagtaasi gabar magaceeda la yiraahdo say ii sheegtay ama anigaan aqaano ardaydeeda ka mid ahay najma cabdulqaadir xuseen waxay gabadha ii soo dhiibtay $100 ee u tiri aabba naasir ayaan ku caawinayaa insha allah waxaa kaloo $50 ay soo gaarsiiyey nin la yiraahdo macalin najiib mustafa cabil oo isna ardaydeeda ka mid ah oo dadka ahlul khayrka ka mid ah insha allahu tabaaraka wa tacaala hadda waxaan guddoonsiinaynaa aabba naasir $150 u dhiganta lacagta waddanka markii loo bedelo 1,917 rubi waddankan ay u dhigan tahay waxaan insha allah idinka rajaynayaa markay idiin soo gaarto fariintan ama videoga idiin soo gaaro inaad kasoo jawaabtaan baahiyada rasmiga ah oo jiro cid walba oo damiir leh ayaan fariintan u diraya insha allah waxaa kusoo dhiibtay waa $150 $100 waxaa iisoo dhiibtay gabar la yirahdo najma cabdulqaadir oo maraykan joogto iyo wiil la yirahdo macalin najiib mustafa labadu waa macallimiin qur'aan ah sida yani aan ogsoonahay anigaba waxayna kaa dalbay inaad usoo ducaysid insha allah khayr badana kuu dhahnay waana ku ducaynaa insha allah aad u mahadsan tahay kaamirada waxaa duubaya cali muxsin waxaana joognaa indonesia jakartaan joognaa xaafadda dhunu indhaha joognaa aad u mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu